بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي وما هذا سبحانه وتعالى. مركا ورسو عليها رمضان كريم رمضان كريم. إلهي سبحانه وتعالى رمضان تاع صونك يا صلاة بين أقبله بشيء إن شاء الله تعالى. إلهي نجارسيو على ما لنا دتكم مدة الصومالية عالم الإسلام ونحلنا رمضان كريم رمضان كريم. waxaan aad iyo aad aan mar kale ka taxsiideynaya masiibada inoo dhacday ee gaar ahaan ku dhacday magaalada Hargeysa ee ku dhacday dadkii halkaa u shaqeysan jiray. waxa leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala awad fiican naga siiyo subhanahu wa ta'ala. waa ogtihiin dalkan waxaan soo galnay 1990kii isagoo muddo in Hiroshima bamkii neutral ku dhacay bamkii lagu soo dhuftay magaalada Hiroshima ee Japan. waxaanu ka dhisnay maanta wada arka quruxda leedahay dalkeenu magaalooyinkii la burburiyay. maanta insha Allah ta'ala suuqa waahen oo reer Soomaaliya oo dhan u dhamaayeen aan Hargeysa qura lahayn dadka reer Soomaaliya oo dhan lahaayeen waanu dhisi doonaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii Soomaaliya ku hadlayay iyo caalamka kale ay noo soo gurmadeen. waxaan leenahay ilaa ra'iisul wasaaraha Ingiriiska, waxaan leenahay ilaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia dakilaka isagoo isku dad baynayo oo inala qaatay iyo Djibouti waa timaaleeyay. waxaan leenahay waa mahadsantiin waa leenahay jazaakumullah ilaa baad ka jaasin doona. waxaan aad iyo aad haddana u hambalyeynaa ilaa hadda si wax u socdaan guddiga la sameeyay. waxaan ku soo jeedinaa in la ballaariyo u soo jeedinaa guddiga. waxaan kale soo jeedinaa haddaan nahay xusbiga ucud in dadkii ku ganacsan jiray meesha ee fuqarada ahaa hilibleydii qudraleydii kaariyoonayaashii in si aanay waxay haysteen raasamaalkoodii aan u cunin meel ay kusii shaqaystaan oo temporary ah. waxaan ka codsanaynaa inaad guddidu ay u samayso si aan u kala go-in magaanaysa daruurigoodii aan u kala doonin meel degdeg loo sameeyo. waxaan kale ku soo jeedinaa in dadka la diiwaangeliyo dadkii meesha meherada ku haystay. guddiyaal baa jiray, hiliblayaasha guddi bay lahaayeen, qudrayda hibi bay lahaayeen, kaarayaashu way lahaayeen, waahin way lahaayeen. in guddiyadaas la howlgeliyo si ay usoo diiwaangeliyaan magacyadii dadkii ka howlgeli jiray dhulkaas si aan dad kale ugu soo dhaqandanay. annagu cid ahaan waxaanu sameynaa insha Allah ta'ala guddi xusbi baan sameyn doonaa insha Allah. guddidaas waxay la shaqeyn doontaa guddida qaran waana monitor gareyn doontaa. marka shacabka reer Soomaaliya waxaa leenahay guddidaasna iyaga la soo xiriira wixii ay garan weydaan si aan u saxno amba ugu gudbino guddida qaran. waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa dadka diasporada oo aad iyo aad isku abaabulay. waxaan ka codsanaa guddida in loo sameeyo guddi gaara, guddi hoosaad gaara oo iyadoo qaabilsan diasporaha waxay soo dirayaan iyadana ku talinna guddaa la sameeyo. waxaan anagu diyaar u nahay inaanu si buuxda arrinta waa arrin qarane inaanu gacan u siino guddidaa la sameeyey. shacabka reer Somalilandna waxaan leenahay yaan loo kala harin, laakiin waa inay dhaqaalaha meesha ku yimaada sidii loogu talagalay waa in u baxaan aanay musuqmaasuq inaanu gelin baan ka digina. waxaan maanta iyadana ku daraya waxa weeye lacagtan ay anoo odhan maayo dowladda Soomaaliya waa dowladda Muqdisho. dowladda Soomaaliya oo jirta ma jirto, waa iska inda saacade Muqdisho ay soo deysay lacagtan waxa weeye waa lacag anagu leenahay baa weeye
taariikhda lacagtan waxa weeye 2013 shirkii u horeeyay aan ku galnay Istanbul dowladda Xasan Sheekh ayaa lagu heshiiyey in wixii macaawino ah iyo wixii magaalada investment inaan la siyaasadeen si toos ah cid kastaba wixii loo hesho labada entity tan u shaqeynay Soomaaliland iyo Soomaaliya entity waxaan ahaa ragii aniga Maxamed Umar oo magaca wasiir arrimaha dibadda afartan loo saaray guddiga technical team annaga soo jeedinay arrinta wayna la qaateena qoladii ka socotay Muqdisho saas lagu qaatay saas la inuu sameeyay special arrangement saas ay u socotay saas DB World investment keedii lagu ansixiyay inaan wixii investment amba hada la baarayo amba international finish in la siyaasadeen Xasan Sheekh dowladiisi ayaa la qaadanay nasiib daro waxay noqotay markay dowladda timi farmaajo boorsada city ayaa arintii inaga hor joogsaday iyadoo qolo inaga hor joogsanay xoolihiina waa ka damcay inaga xidho ma qorta lacagtan waa lacag aan leenahay laakiin uu mahadsan yahay ra'iisul wasaare Rooblo lacagteedii inuu soo dahay waana waxaynayo la shukr ala waajib laakiin isagu qaar kale way naga xanibayeen Rooblo waxaan ka cusub ku keenay soo deysaan doonayna insha Allah lacagtaas waa lacagta horumarka lagu talagalay ragii halka reer Soomaaliland ee ka hadlay xaleena raga joojiyay bahay especially taariikhda idii loo meeso marka lacagtaas waa lacagteeni waana mahadsan yahay sidoo ay didin ugu heeliyay inoo heeliyay maanta hadii lacagteeni noo soo daayay uu mahadsan yahay khayr ma soo deeyni ayro ma soo deeyn waxa rag saxiixay iyo kamid ah maanta wuxuu doonayaa madaxnimo doonaya marka dadku inoo kala tilmaamsan beel weyn oo kala tilmaamsan godobtiida waa ognahay godobtiida waanu daba gali doonaa insha Allah taala waanu ogaa mid baan liiska haysan marka waxa leeyahay taas waa teeni buu khadaaya waxeeni ku murmina waa mahadsan dad kale soo jawaabeen mahadsan dawaka marka waxa leenahay reer Soomaaliland weligeed bade waxaynu ilaa halgankii halgan shacbi buu ahaa maanta waa arinta waa arin qaran waa arin shacbi way noo wada taala dawladda qolo ma taalo waa arin noo wada taala ay gacanta isqabano iscaawino isjeclaano ilaahay beerkeena burcad ku haysko maray subhanahu wa ta'ala ilaahay xaska in laga daayo subhanahu wa ta'ala xasad bayna dilay ilaahay inta fidnada watana damigooda ilaahay naga dhaafay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.